soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeena maanta waxaan ku falanqeyn doonaa dhowr dhacdooyin oo kala duwan oo ka dhacay bariga Afrika. dabcan dhacdada ugu horeysa ku falanqeyn doona waxay tahay booqashadii lama filaanka ah ee taariikhigan ahayd ee madaxweynaha Somaliland uu ku tagay dalka Israel. sidoo kale waxaan ku falanqeyn doonaa dhacdooyin kale oo arrimaha gudaha oo maamulka goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ka dhexeeyo, iyo waliba warbixin ay soo saareen kooxda xagjiriinta ah ee ka dilaacay dalka Koonfur Afrika, isla markaana ajaanibta aad u neceb oo ay aad ugu dharbaaxeen dowladda ay kamid tahay Soomaaliya. intaas ayaan ku falanqeyn doonaa ee soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkan. haddaba madaxweynaha Somaliland Claire Carra ayaa booqasho taariikhi ah oo taariikhda ku qormi doonta si walba ay u madoodahay ama si walba ay u qurux badan tahaba ku tagay dalka Israel. magaalada Tel Aviv ayuu tagay, sidoo kale deegaano kale oo Israel ka tirsan ayuu tagay, halkaas oo la sheegay in heshiisyo caalami ah ay ku wada galeen Israel iyo Somaliland, maadaama Israel ay tahay dalka ugu horeeya aqoonsaday wadanka Somaliland sanadkii hore dhamaadkiisii, dabcan December-tii lasoo dhaafay ee 2025. madaxweynaha Somaliland oo la filayay in safarkan uu aadayay ayaa wuxuu kusoo beegmay xilli madaxweynaha Soomaaliya isbuucan hadallo xasaasi ah oo madax banaanida Somaliland taabanayo uu sheegay. ayaa haddana maanta waxaa soo baxday in safarkan uu ku tagay Israel. walow dowladda Soomaaliya warbixinada ay kasoo saartay qoraal ay ku ekaayeen oo kaliya, hadda waxaa muuqata in Somaliland aqoonsigii wadahadalka ahaa oo dadka badan ay ku sheegeen video call hadda ay u bedelayso si practical oo hirgeline. madaxweynaha ayaa halkaasi iyo marwada koowaad ee Somaliland ayaa la yiri ayaa halkaasi waxay booqasho ku tageen qabriga aasaasihii ninkii aasaasay waxaa la yiraahdaa maanta Israel. sidoo kale meelo badan ayaa la geeyay oo madaxafyo ah oo ay kamid yihiin meelaha taariikhiga iyo taariikhda Israel lagu kaydiyay dabcan. balse marka hore barnaamijka falanqeyntiisa ayaan aadi doonaa iyo wixii warbaahinta dalka ay ka sheegtay. The president of Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, is in Israel for a historic state visit. He met Israel's President Isaac Herzog in his official residence in Jerusalem earlier today and is set to meet with Prime Minister Benjamin Netanyahu next. The visit includes the opening of Somaliland's embassy in Jerusalem, as well as government meetings aimed at expanding cooperation and in trade and security and renewable energy. In December, Israel became the first and only country in the world to recognize Somaliland, which broke away from Somalia in 1991. Here's what both of them had to say on this burgeoning new relationship. The visit carries special significance. It is the first visit by a president of the Republic of Somaliland to another country. madaxweynaha Hargeysa ayaa intii booqashada ay socotay meelo badan tagay, isla markaana shirar la yeeshay xubno kala duwan oo dowladdaasi kamid ah. balse waxay kusoo aadaysaa in safaarad ay ka furtaan Qudus, dalka ugu horeeyay oo islaam oo safaarad ka furtay Qudus ayaa leeyahay. dabcan ma noqon doono madaxweynaha Somaliland madaxweynuhu ugu horeeyay oo muslim ah oo Israel lagu soo dhaweeyay, balse arrimaha ku gadaaman iyo maxaan ku iraahdaa iyo xiisaha ay leedahay ayaa macno u yeelay oo kaliya, laakiin waa loogu horeeyay rag badan ayaan hore loogu soo dhaweeyay. balse hadalkii uu meesha ka sheegay ninka la yiraahdo oo aad u dheeraa oo aad ugu mahadceliyay Israel ayaa waxaa kamid ahaa ninka la yiraahdo Carro. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mr. President, Your Excellency President Isaac Herzog, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of the government and people of the Republic of Somaliland, it is a profound honor for me to stand before you today at this state visit and to address you in person during what is truly a historic visit. I wish at the outset to express my sincere appreciation for the exceptionally warm welcome, the dignity of the reception, and the spirit of friendship that has defined every moment of this visit. mid kamid ah saxafiyiinta ka howlgalo kanaalka 12 ee kamid ah mid kamid ah kanaalada warbaahineed ugu afka dheer dalka Israel ayaa aad ula socda arrintiisa mar laga wareystana ku tilmaamay in Somaliland iyo
israel inay xiriir yeeshaan ay muhiim u tahay gobolka islamarkaana labada dalba dan ay ugu jirto waa sida uu sheegay dabcan waraysiidii wuxuu uu ka hadlayn waxaa kamid ah sidatan has a lot to gain by recognizing Somalia being the first to do so and really not much to lose. You're saying Israel has a lot to gain, but if we look at it in the wider perspective, what does it say about Israel's relationship with Somalia, and how does this potentially open doors for bettering relationships with other countries in the region there? Well, look, it's the UAE that's often seen as part of this de facto alliance of Bianca. The UAE hasn't recognized Somalia, and as you just mentioned, Israel's the only country to have done so far. But the UAE is seen as being very supportive of the government in Somaliland and very close with it. And this has been seen in part as a budding alliance between Israel, the UAE, and Somaliland, according to a lot of analysts, and other potential countries and other potential allies of the UAE around the greater Middle East. So that's how it's been seen geopolitically. What's interesting about this visit, Bianca, is beyond that, and of course that's very, very important. The security relationship, the geopolitical relationship in Somaliland is very important. isku soo wada duube arrintani ayaa waxaa la sheegayaa inay waxyaabo badan ka bedeli karta dhanka amniga iyo dhanka dhaqaalahaba arrimaha siyaasadeed ee sii hadlaysan ee ka jira gobolka gaar ahaan bariga afrika sidoo kalena soomaaliya dabcan dowladda soomaaliya war ilaa hadda la hubo ama lagu kalsoonaan karo oo israel wax u dhimi kara maysa sheegin balse wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha gaashaandhigga iyo qaar kamid a filla soomaaliya inay aada iskaga daldalmeen waa la arkayo social media wax dhaafsiisan sooma sheegin balse waa la arki doonaa taariikhda ayaa sheegi doonta in ay suuragal tahay in israel halkaas ayaduna ay timaado madaxweynahooda safaarad ay xarig jaraan islamarkaana ay ka qudbayaan walow shacabka somalilan hadda aad moodo arrintan inay ku kala qaybsayiin balse wixii kasoo baxa waqtiga ayaa sheegi doono laakiin arrintan ayaa waxay noqonaysaa in dowladda ama maamulka somalilan ay tilaabo hore ugu qaadeen sidii ay u raadin lahayn abaabadan ugu furi lahayn cid walba oo danaynaysa inay ka faa'iidaysata kheyraadka la sheegay in halkaas ku jira islamarkaana aqoonsi ugu bedeli karta ama waxaa la yihahda ictiraaf oo 35 sano ay raadi doonaan wixii kasoo baxayse waqtiga ayaa sheegi doona dhanka kale haweeneyda hogaamiso kooxda kacdoon wadayaasha ee dalka koonfur afrika ee layidhaha majan maj ayaa warbixin ama qoraal ay soo dhigday barteeda facebook waxay ku sheegday in dowladaha soomaaliya etoobiya bakistan iyo bangladesh ay iska nasanayaan oo wax ficila aysa qaban halka dowladihii kale ay soo doonanayaan ay tir muwaadiniintooda ku dhibaataysan dalka koonfur afrika ama muwaadiniintooda kamid ah ajaanibta aan kariyna dalka koonfur afrika dabcan arrintani ma jirto wax cadeyna ama jawaaba oo la sii karo marka ay qofka noocaan oo kale uu iska hadlo laakiin haddana waxaad moodaa in bartilmaameed markaan ay ka dhiganayso dowladaha ay afka ku sheegtay kuwaasoo weliba ah kuwa ugu badan ee inta badan ganacsiyada ay aada u durayaan dadkani leh oo islamarkaa ay sheegaan ganacsigayada laga qaatay dabcan afarta dal ay sheegday waa afarta dal ee ganacsiyada ugu badan ee inta badan ajaanibta hadda lagu bartilmaameedsanayo ama loo bartilmaameedsanayo ayaga leh weliba ah kuwa ugu dhaqaalaha badan ama ha noqoto meelaha laga soo adeegto ama ha noqoto meelaha alaabaha laga soo gato yaryarka kuwa waaweyn iyo weliba dukaamada intaba ay leeyihiin gobolada dalka koonfur afrika oo dhan marka la fiiriyo ajaanibta kale waxay ahaayeen kuwa un shaqooyinkii ay u shaqo tegi jireen qolyoogan South Africaanka kala shaqeynaya oo wadooyinka ay ka qabsanayeen lama oga dabcan dowladahani in ay u dhaganuglaan doonaan qofkani balse ma aha qof title dowladeed ku hadlay oo warkeeda dowladda ama diblomaasi ama safaarad inay usoo jawaabtay ay tahay laakiin hadalka ay sheegtay ayaa waxaad moodaa in falcelin badan ay ka dhalatay inta badanna dadka qaar bay sheegayaan in kuwaasi la leeyahay dhaqaale ay ku haystaan dalka inay ka baxaan mar rabaan dumarkeena ay gursadeen waxyaabo badan la isla sheegay halaas ay u dambeeyeen waxyaabihii dhanka koonfur afrika maalmaha ka dhacay inkastoo weli mudaharaadyadii iyo banaanbaxyadii iska sii socdaan dadka ajaanibta aan weli la bartilmaameedsanayo dhanka kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda soomaaliya ay u ruqaansanayso sidii ay uga takhalusi lahayd maamulada ku madax adeegay ee muddooyinka ugu dambeeyay dagaalka uu kala dhexeeyay jubbaland iyo somaliland halkaasoo la sheegayo qorshihii lagu weerari lahaa in lagu dejinayo fila soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayaa waraysidiisa ugu dambeeyay habdhaqankiisa siyaasadeed markaa dib u fiirisa waxaa muuqata in markani uu diyaar u yahay in dhinac walba uu dagaal ku qaado madaxweynaha ayaa kasoo farxashay dabcan dagaalo uu ku galay gobolka koonfur galbeed halkaasoo dabcan ugu dambeyntiina qof asaga uu watay uu madaxweyne ka dhigay walow doorasho aan la aqoon sida ay ku dhacday iyo weliba inay ka bedelan tahaba doorashooyinkii ay dowladda soomaaliya eedeynaysay arrintan waxay kusoo begmaysaa iyadoo maanta dowladda maamul goboleedka jubbaland ay hub iyo ciidan soo
bandhigeen islamarkaana ay jawaab u celiyeen madaxweynaha soomaaliya usbuucan sugnaashada madaxweynenimo ee ninka Jubbaland hogaamiye duray islamarkaana sheegay inaysan u aqoonsanin wax madaxweyne ah doorashadii halkaas ka dhacdayna aysan ahayn doorasho ay aqoonsantahay dowladda Soomaaliya ayaguna aad ay u jawaabeen shacab careysan oo aad uga soo horjeeda madaxweynaha Soomaaliya islamarkaa diidan ayaa ayaguna sidoo kale aad uga soo jawaabay warbaahintan laga arkay qaybo kamid ah gobolada galgaduudne maanta waxaa ka dhacay mudaaradii aad looga soo horjeeday madaxweynaha Soomaaliya taasoo gabi ahaanba lagu qaadacayo doorashada asaga kaliya uu yaqaan oo ku wada inay dalka ka dhacdo walow madaxweynaha Soomaaliya hadda ay u muuqato inuu u jihaysanayo galmudug oo maalmihii ugu dambeeyay ay aad isku hayeen shakhsiyaadka ishaayo ayaa la leeyahay haddana weli qaybo kamid ah magaalooyinka gobolada galmudug in gabi ahaanba madaxweynaha Soomaaliya laga diiday lagana taageersanin oo leeyahay doorasho adiga aad wadid ma aqbali doono mana yeeli doono guud ahaan isku soo wada qaar kamid ah beelaha degan gobolka galmudug ayaa sheegay inaysan taageersaneyn waxa doorasho Xasan Sheekh uu rabo in mid asaga uu yaqaan oo kaliya uu ka qabto halkaasi dhanka waqooyiga Amerikana waxaa si habsami leh weli uga sii socdo tartankii ciyaaraha adduunka inkastoo waxyaabo badan oo madmadow ay iska jiraan Brazil iyo Morocco ayaa bareejo ku kala baxay weliba bareejo lama filaana oo aan laga filin Morocco ay heshay halkaasi halka sidoo kale Qatar iyo Switzerland bareejo ayagoo kale ay wada heleen Turkiga oo isla waa adag yahay Australia ayaa ka go'goosatay oo 2-0 ku garaacday sidoo kale goolasho ugu badnaa markan waxaa dhaliyay dalalka Sweden iyo Jarmalka oo mid 5 iyo waxba uga badisay kooxda Tunisia iyo Sweden Jarmalkana 7-1 ay uga badiyay xulka Croatia Netherlands iyo Japan ciyaar xalay xilli dambe soo gashay ama asaqdi dhaca soo gashay ayaguna 2-2 ku kala baxeen dabcan ciyaaruhu wali waa ay sii socdaan goona adag yihiin kooxo badan kooxiga waaweyn kala jiro Yurubna wali waa ay wada dhimayeen balse waxay soo baxay arki doonaa mar walba in barnaamijkeena qaybtiisa dambe ciyaarahan ku falanqeyno oo ku fiirin natiijooyinka ugu dambeeyay isku day doona